Asalaamu calaykum kusoo dhawaada channelkeyga. Maanta waxaan karinayaa gulaab jaamuun. Gulaab jaamuun waxaa iska leh hindida. Meeshan waxaa iigu jiro laba kaab oo caano boore ah iigu jiro iyo hal qaando heel ah iyo waxaa kale iigu jiro baking powder aan isticmaalayaa baking powder iyo waxaa kale iigu jiro meesha subag 2 spoon oo u dhigma waa jarjaray waa bararka dheerka haddaa rabtin subag la dhalaaliyo waa isticmaali kartaa laakiin kanaa ka fiican markaa isticmaalaysid marka insha Allah waa isku wada dardara markaan isku wada dardaro waxaa arkaysiin soo noqonayo marka ma loo baahno inuu biyo ka noqdo zaid kole asa qaleel oo noqona maxaa biyo guli ma isticmaalin laakiin subagii ku dhex jibinaya Soomaan marka subaga waxaa loo baahan yahay iyo caanaha booraha si fiican inay isku galaan u qastid qasidaas waxaa loo baahan yahay si fiican inaad u sameysid marka insha Allah waxaan isticmaalaa 4 qaando oo bur ah burkaas meesha ii yaalo 4 spoon aan ka isticmaalaa asna waxaa loo baahan yahay in la qaso oo si fiican iskugu dhaxgalo marka muhiimku waxaa waaye inuu subaga uu kuskus meelahaas uu fafadhinina loo baahan yahay muhiimka kaas waaye inaa mar walbo gacantaa si fiican ugu jibisid okay inta waxaa ii yaalo waa budada soorta oo daqiiq zaid sida burka oo kale waaye waxaan ku shubanaa meesha 3 qaando iyo 2 qaando oo biyo ah aan iskugu qasaa marka iskugu qaso haddana waxaan ku shubaa baaquligii iigu jiray caanaha booraha aan sameysanay marka waxaa loogu darayaa yani markaa cunaysid inaa yani caano booro kaligiis cunin loo baahan yahay dhan kale inuu lahaado ahaana loo isticmaalayaa budadan soorta marka budadan soorta caadiga waaye bas laakiin waxaa loo baahan yahay inuu budo yani burka oo kale inuu noqdo budo zaid u shiidan waaye inuu saas ahaada loo baahan yahay marka insha Allah waxaan kala isticmaali doonaa caano marka caanaha waxaan isticmaalaa 8 qaando aan horta ku qasana si fiican ila socdaya muddo burka saan hadii yeelay qaleel caadi ah waay marka waxaan isticmaalaa caanahan waxaan u baahanahay 8 qaando hadda iyo 5 qaando oo hadhow aan isticmaalayo marka hadii la isku wada daro waxaa waaye 13 qaando ama hadda ku wada shubo kulli ama hadda 8 ku shubo hadhow marka 10 daqiiqo dhaaftid furtid haddana 5 kale ku shubo marka choice-ka adiga iska leh marka labadaba waa sameeyaa marna waa kala qaybsadaa 8 haddaan ku shubtaa 5 hadhow aan ku shubtaa marna 13 qaando haddaan ku wada shubaa kulli yani hadhow mar labaad ma rab inaan shaqo kale iyo wax kale aan ku daro marka laakiin waxaa idin tusayaa labadaba inaad sameysan kartiin okay marka saas u qasida aragta inuu si fiican u qasmay waxaa qaadanaysaa inaa wax ku dabooshid marka ani bacdana isticmaalaa oo raashinka aan ku daboosho kanaan ku daboolaa waxaan sugaa 10 daqiiqo 10 daqiiqo markaan sugo 10 daqiiqo kadib haddana waxaan bilaabaa inaan burkii si fiican u qaso yani 8 qaando hore aan ugu shubay iyo 5 kale hadda aan ku darsanayo aan ku qasanayo markaan ku qasto markaas waxaan bilaabaa inaan ku kuuso marka waa ka ujeedin waa soo kuukuusa saasoo noqonaa marka saliidna waxaa u baahan tahay inaad isticmaashid meel yar inaad saliid ku soo shubatid qaandada cabir uu yahay ice creamka markaan daro yani halkii oo wax qaando wuxuu ii sameynaa hal kuus oo sax ah ma iga qaldaay okay marka hadda muhiimka waxaa waye meeshan marka aad ku kuusaysid waxaa jiro dildilaac yar jiro oo ka soo baxayo marka mar walba waxaa make sure sameysaa saa waxa ugu riixriixaa inaan dildilaaci inaan qariyo moor warwareejisid moor dildilaaca uu bato laakiin markaa saan yeelaysid dildilaaca waa isqabana oona isticmaalaysid saliid muhiim waaye inaad isticmaashid saliid la'aan dhib waa biyaha gacantaada ku taaban because caano waa si fashaqa gacmuhu kaaga dhigdhigaa marka saliidaas aan isticmaalaa ani waa kana ujeedin marka insha Allah markaan dhameeyo waxaan bilaabaa dubida saliidaada inay noqdo waaye dabkiisa medium
high dhan ma loo baahna. haddaa high geysid isla marka kalarka waa bedelma, dhexdana ceeriin waay. marka wuxuu u baahan yahay dab tartiib aa ku karisid. marka insha allah marka aan kariyo markaas dan waxaan idin sii tusaa saan sokorta aan ugu shubi lahaa. iyo marka sokorta 2 cup or 4 cup camal iyo 2 cup biyo aa isku dari kartaa. waa karkarin kartaa yacni ilaa uu ka gursado ma ahan, wax yar markuu karkaro waa iska damin kartaa. marka waa ka ujeedin kalarka saanu noqdo. qof walba choice uu leeyahay. dad waxay jecel yihiin light gold inuu noqdo, aniga saanaan jeclahay kalarka inuu saan noqdo. waa ujeedaan. marka inta ka bixiyo waxaan sugaa 10 daqiiqo. 10 daqiiqo markaan sugo kadib waxaan ku shubaa sokortii aan dabka saaranayo. marka insha allah marka aan sokorta dabka saaro arko inuu sokorta karkaraya hadda uu yacni uu kululaaday waxaan ku shubaa gulaab jaamuuga. marka intaan ku shubin dabka dansanaa, ma loo baahna dabka inuu daarnaado. marka aan ku shubo gulaab jaamuuga aan gudaha aan ku shubo waa daboolaa. markaan daboolo waxaan meeshaan ku dhex dhaafaa waxaan ku dhex dhaafaa biyaha dhexdiisa biyaha sokorta waxaan ku dhex dhaafaa 4 ama 3 saacadood kadib aan furaa. markaan furo waa kan sokortii waa soo yaraaday, mujeeda sokortii dhan wuxuu dhexgalay gulaab jaamuuga gudihiisu dhexgalay. marka waxa waaye markaa cunaysid yacni sokorta ilaa iyo lafta gudaheeda ka gashay. marka insha allah waxaan idin tusaa siduu yahay dhexda uu noqday idin tusaa. yacni moor saliid ku dhex dhaaftid sokorta, moor uu dhuuqo sokorta, moor uu gudaha uu sii jilco. hadda daaribta waa ku dhaafi kartaa ilaa iyo beri subax inuu ku jirnaado. hadda markaa karisid ilaa yacni labaadkan ka wadaa, ama haddaa subax karsatid ilaa iyo habeenka sokorta iska dhex fadhin karaa. okay waaye, wax problem dhan ma lahan. moor uu ku jiro, moor uu kusii jilcale. marka haddii adi aa rabtid gulaab jaamuun inaad guriga dhexdiisa ku dhex karsatid, it's very easy. waa sameysan kartaa, wax saas weyn ma ahan. waa ujeedin saa aniga aan u sameeyey easy waaye. marmar dadka qaarkooda waxay ku daraan caanaha garoorka lagu daraa haddaa rabtid. laakiin insha allah mar kale waxaa idin tusaa nooc kale oo la karinayo asina oo gulaab jaamuuga le oo si kale loo karinayo. marka hadda waa kana waxaa idin tusaa midkii hadda aan kariyey dhexdiisa idin tusaa sokorta u galay. waa ujeedin maasha allah kalarkiisa xataa waxa waaye gold brown waaye oo aada u qurux badan. waa kan waa soo dhameeyey. idinkoo isdhibin wallahi caadi waa karsan kartiin, wax saas u dhib badan ma ahan. easy waaye kan. yacni hadduu qof kuusoo socdo camal waxba kuu yaal macmacaan kanaa karsanaysaa iyo qaxwo, okay waa cuni kartiin. waa ujeedin. marka insha allah waxaan idin dhihi lahaa try garee idinkane. waxaa idinkana sameynaysiin gulaab jaamuuga maanta ani aan sameeyey ka macaan badan insha allah. easy waaye hadduu ilaahay nacam dhaho. kheyr badanaan idin rajeeyey. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.